وارياه والسلام عليكم بو وان نبض قوايا adigu see tahay waar waxa weeyaan walaal aad iyo aad baan isaga fiicanay kowdhe waa ma sha Allah bashbash iyo barwaaqo marka arrin yar baan ka lahaa maanta waa gartay de arrinku tolo muxuu yahay walaal arrinku wax kala ma aha waxaan rabay inaan ku sheego inaan maanta gooni isu taagay on de magaranaysa ka go'ay on de ismaamul gaar yeelan doona insha Allah say ku dhici karaysaa miyaad waalantay war maxaad ku hadlaysaa war waa ku sidee walaal sinameehi waxa weeyaan de waxaan rabay inaan gooni isu taago on de keligii ismaamulo maxaad ka qabtaa arrinka maxaad u malayn war miyaad waalan tahay war gooni seed isugu taagi karaysaa kaligaa miyaad noolaan karaysaa miyaad iga maarmaysaa maya walaal de kala maarmi mayne walaaltinimadu way noo socon maxaad kala maaran ka dooni macnaha waxa ku leeyahay laba dawladood inaan kala ahaano inagoo de walaal ah dar dushaas oo de isku afoo de isku diino isku dhaqana de walaalow ilama hayna taa ka yeelayo horta waxaan ku weydiiyay ciidamo gaar ma yaad leedahay de ha waan leeyahay ya waxaan ku weydiiyay madaxweyne gaar ma yaad leedahay de ha waan doortay isna waan leeyahay acab wasiir gaar ma yaad leedahay ها iyagana waan leeyahay waan doortay war maantu sheeka keenayga aamusa war yaanku waxaad leedahay waan go'ay anu de go'itaanka midkaad ka wada ma garanaye laakiin waxaan kaaga wadaa un de laba dawladood oo kala gaarayno had kadib walaalo oo jaara un de haddaan ku gartay Soomaalinimada rabtaa inaad furto Soomaha waar ilaan Soomaalinimadu maaha guri kale laga soo baxayo kale la galaye macna Soomaalnimo qasab baynu ku wada nahay inagoo xataa dooranine macna laba dawladood maynu kala yar ahaanayna de macna waxbayna isu dhiibanayn wayna is aaminayn war yaa hadda leedahay waan go'aya luqadda Soomaaliga iga tag maxay ka duldhigay waar ilaan af Soomaaligu waa 10 nooc adu kaagi baad haysataa de anna kaagi baan haystaa managa Soomaaliyaba war yaa wax ma ku sheegaa war gaalkaas aan ku aqoonsanin dawlad ma ahaanaysid waxaad ahaanaysan jirinba waar ilaan gaalka aqoonsigiisu awal buu waxbay ma tareen anige anu adiga ma ku rabaa inaad aqoonsato ilaahay waa ka aqoonsaday on gooniisu tago awoodisi adigu uu aqoonso walaalkaya gaalkan intiis maxay iga galay may ala casha waa haday tima ka soo baxayaan ba dawlad noqonaysa waan ku xaasidi meel walba galaba waar maxaad iga xaasidiso walaalka meehi ta kala baasaboorkana ma dadkayga ICCC ha kugu dhoofan kaagu gaalku aqoonsan iyo waliga inta kayga aan ka helayo maad aniga si caawis qurayo kaana waan ku xaasidi oo waan ku diidi si aanad wadankaba uga bixin oo u dhoofin oo horumarba u gaarin ba bismillaahir rahmaanir rahiim waa bal waayahay inta yar gaalku kugu soo caawiyo balanna wax iga soo yar gargarsi kulli wadiga magacayga ku soo gurtay magacaagana gaaladan kaga soo dawarsanaya oo cuntooyin kaga soo qaadanaya marka ii keenaan waxba kaama sinay gaajan kugu dilaya ilaa amarkaygiiba diido inaad aniga hoos timaada diiday war qof walaala abaynu nahay baad leedahay waxaanu xaasidnimo maxaad ka keentay waa ku sidee ma iska kaydeysido iska nabad gelis oo dusha walaala ka ahaano maxaa ku dhibaya waad waalan tahay baan u malaynaya ka dayn maayo xaasidnimo ilaa aad lugtayda ku hoos jirto ama aan xurto kugu hayo maahana ya madax banaanaan miis bal waaye nabaday intaas maan kugu yimid waan baxay anugu Etoobiyaanka iyo waxaan soo salaamiyoon dooran doona markaalay dadkay soo caawiyo dadkayga way diideen inay caawiyaan maxaa tiri Etoobiyaanka caawimo doonanaya waar yar ma maqlaysan waar nimankii caawimadan wax ka siin weyneen aqoonsigoodana madaxa kaga taagnayn meel walba ka xaasideen ma garanaysaa waxay leeyihiin Etoobiyaankii ayaanu caawimo doonanayna mar haddii noo diideen marka ku yaaca Facebooka meel walba ya ka caaya wax tiraadaan walaaladood bay xabasho ka doorteen ku caaya de walaal marka dagaal ba diyaar tahay waxa xaasidnimo way dhaaftay anna ku caawin maayo dadkii ku caawin lahaana waan ka hor istaagaya wallahi xaasidnimo way dhaaftay waxa dagaal cad weeyaan ya oo dagaal ba diyaar tahay Soomaaliya dhamaantii waad naqashaan nimankii waa cusuriyiinta dagaal bay diyaar u yihiin hal la kaco shucuurta Soomaalida oo wada kacdo nimanka cusuriyiin aan ku tilmaano nimanka aynu cayna meel walba